xildhibaan wasiir Cabdullaahi Goodax Barre maanta wuxuu ka hadlay dadka Puntland wasaaradda waxbarashadu waxay diiday inay manhajka midaysan iyo imtixaanada midaysan qayb ka noqoto waxaan u maleynayaa qodobka 3aad farqadiisa 6aad iyo akhriyo in la qaado maaragtay dawladda shaqooyinkeeda waxa kamid ah wasaaradda waxbarashada manhaj midaysan wax badan ma Soomaaliya midaysan oo wixii ugu yaraayeen maaragtay taasi waxay u badan tahay waxbarashadu wax badanaaba ay maamul goboleedyadu ama dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka shaqadeedii wuxuu ka tagayo kabasi weyn qodobka 54aad ee dastuurka kaasi oo sheegaya afar shay marka laga reebo waxyaabaha kale oo dhan wadaxaajood bay ku imaanayaan arrimaha waxbarashada iyo waxyaabaha maaragtay tahay in dib looga wada xaajoodo wax badan baa Soomaaliya iskaga murugsan system baynu qaadanay federalism baynu qaadanay dastuur qabiya baynu ku dhaqanaa wasiir walba haduu helayo wasaaraddiisa inta hoos tagta xabar buu geyn lahaa Soomaaliya waa kala degtay oo laba guri bay kala degan tahay waana wada shaqaynaysaa marka hadalkaas waxaan u maleynayaa Cabdullaahi Goodax Barre inuusan munaasab u ahayn waa nin aqoonyahana waa nin odaya waa nin laba xildhibaanna ah maaragtay wasiir ah waxaan rajaynayaa hadalkaas inuu meel fagaaro ah sidoo uu yiri oo kale si lamid ah uu yiraahdo arintaasi waa arin macna khalad oo dhacay inuu saxo inuusan madax adkaanin inuusan maaragtay gaf ku sameyn dadkan iyo maaragtay waa waalidiintooda iyo caruurta hanjabaadaas oo kale waa hanjabaad maran waxba kaga ma qaadi karo annaga waxaan u damaanad qaadaynaa ardada iyo waalidiintuba maaragtay inay heli doonaan waxbarasho ay maaragtay ama dibad ha noqotay ama dal ha noqotay systemka emergency walba lacagteena ku wadnay iyo dhaqaalaheena dawladdu waxaynu ka heli lahayn ardaygaasi ma ka soo baxay dugsiga sare Umar Samatar Gambool sidaas oo kale ma Bosaas secondary school ma ka soo baxay in la hubiyo kaliya ku leedahay wasaaradda wada shaqayn laakiin kuma laha qofkii aan imtixaanka meel hebla lagu qaaday ka soo qayb galin nooma jiro halkan waxa jooga aqoonyahan Soomaaliyeed cid walba yihiin gobol gaar ma aha iyaga waxbarashada ka shaqeeya iyaga imtixaanada qaada iyaga manhajta dejiyay iyaga cid walba ka khibrad badan marka arrimahaasi haddaad jeclaan lahayd in wasaaradda waxbarashada gacanta soo gasho dastuurka dhamaystir oo dastuurka ka shaqeeya xildhibaanna waa tahay wasiirna waa tahay waxyaabaha inaga maaragtay bacsan waxbarashadu uma badna annaga halka Soomaaliya waxaan u nahay lead Puntland baa hogaamisa waxbarashada maal ku dar waqooyiga kuwa Soomaaliland ku dar Puntland idna marti uga ma aha waxbarashadeeda iyo hanaankeeda iyo siyaasadeeda intaasna waxa weey shacabka reer Puntland daliya dibad jooga waxaan dawlad ahaan aan idin ballan qaadaynaa mid ku difaacaynaa caruurtiinu inaanay ku dhici doonin